هي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله إلهي بقى ما هذا سكله سكاية كاني فرحدان يروب كان يبرواقة نسيا إلهي يسمى هذا علينا وحنوها ملياننا وسير هذا الوضع واقعي مع ملك الجلمذك مدحوينه إنه مدحوينه أحمد عبد الكارية وسير رفيع عن أطياله أيوم مقعابي waxaan leenahay kuwii waajibkooda guta Allah ka dhigo waan u hambalyeynaa madaxweynaha waxaan leenahay shaqo fiican oo aan soo dhaweynaynaa qabatay ilaahayna waxaan ka sii baryaynaa inta noo hartay inuu noo dhameystiro saakay ragco aad iyo aad aan isleenahay dalka iyo dadka iyo diinta waxay ku soo kordhinayaan ayaad magacowday waana sugaynay wax kale oo fiican oo ka horeeyana waad samaysay dib u heshiisiin dhab ah iyo isku keenistii galmudug raggii kula samata bixin lahaana waad xulataan leeyahay inta dhamina waxaan leenahay Allah kugu guuleeyo hadda waa hambaliyaan leenahay maana wax kale oo war meesha ma yaal saaki qofka soo reer galmudugana waxaan leenahay uu farxaysan yahay markuu ugu yiraahdo dhooluhu cadeynaya aad iyo aad baa u mahadsantihiin sax misradan la magacaabay waxay dalkan deegaanka ka bedeli karaan wax weyn ayay ka bedelayaan hadda kuwan wax bedelin kuwa kale wax bedelaya ma jiraanba raggii dalka wax u soo bartay khibrad iyo aqoon dheeraad leh adduunka wax ka yaqaan Soomaaliya u soo shaqeeyay aqoon waayo aragnimo wax walba ragga qaranka weey ragga maanta meesha u soo shaqeeyay iyo Soomaaliya ragga meesha maanta la magacaabay intooda badan inta kalena waa rag ayaga laftigooda aqoon leh criteria lagu soo xulay iyo kartidooda hadda inaan iimaanka intaan isgalino dadkii anaga laftiga shaqada ka rabaa hadaan nahay shacabkii waa shaqeynayna waana in la garab istaagayna Soomaaliya ama galmudugna waa cusub ayaa u soo koray ismaaragtay garabiyac dambe iyo hawshaas waa iska dhamaatay aad iyo aad baan maaragtay uuna faraxsanahay uuna soo dhaweynayna wax ku dayasho mudan ayayna sameeyeen boqolkiiba boqol baan soo dhaweynayna